daawadayaal waa mar kale iyo Faafiye Show programka caawa wuxuu ku saabsan yahay arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaan ku soo qaadan doonaa shakhsi aad uga dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya shakhsi lagu tilmaamay inuu jagooyin ama titles badan ku leeyahay dawladda Soomaaliya warar lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya aysan waxba qaban karin ama farna qaadi karin ilaa laga helo qofkaas amar ama aqbal laakiin waxa la yaabi doonta haddii aan ku yiraahdo qofkaas aan caawa ka hadli doono in uusan ahayn wadani Soomaaliyeed wax shaqo uu ku yeelan karana aysan jirin arrimaha dalka Soomaaliya waan garan karaa hadda waxaad isweydiinaysaa talow qofkaas yuu noqon karaa waa su'aal fiican bal nala daawada fiidiyodan soo socda xasan sheekh maxamuud iyo ragga la midka Cabdifaarax Cabdiqaadir iyo shan boqol oo madax oo Soomaali oo waxay ahayd aniga hebel baan ahay ani kan baan ahay waas baan ahay Suudaan baan ahay Bambi baan ahay ya hal wiil oo xabashi intuu yimaado Gabriel doofarta ugu wadayeeyay kulligood markaas mid kasta jilbaha uu dhigay oo jilbaha isla dhacay oo si kale uu noqon iyaga oo dhan kaliya ma meel wadi kara intuu ka hadlo ka kacay meheradi baa baabaaday lagama xoog badan lagama tiro badan lagama xoolo badan meheradi baa baabaaday niyadi baa laga dhintay waa la isdiibay warta isdiibin aan idin sheegay General Gabre wuxuu ahaa generaalkii watay ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee ku soo duulay wadanka Soomaaliya sanadku markuu ahaa 2006 isagoo markuu cagta sidaas u soo dhigay wadanka Soomaaliya ka bilaabay xasuuqa shacab Soomaaliyeed Gabre waa gacan ku dhiigle istaahila in la geeyo maxkamadda Hague Gabre tan iyo intii uu soo galay wadanka Soomaaliya waxa uu ka shaqeynayay lugooyada iyo iska horkeenka ummadda Soomaaliyeed General Gabre waxaad ku arkaysaa shir walba oo Soomaaliya ku saabsan waxa isweydiin mudan yuu yahay ninkan waa maxay official title-kiisu Gabre sida aad sawiradan uga jeedaan waa nin aad iyo aad uga haysta madaxa dhammaan hogaamiyayaasha ama madaxda Soomaaliyeed bal eeg sawirkan waa Gabre aad moodid inuu amar adag siinayo madaxweynaha Soomaaliya waxa meesha fadhiya 3 madaxweyne goboleed oo kale waxaad moodaa sida ay u dhageysanayaan ninkan inuu yahay macallin dugsi ardaydiisii wax u sheegaya madaxda Soomaaliyeed iyagu sidaas iskuma dhageystaan bal eeg sawirkan kale oo uu gacmaha kula jiro waraaqo ama dokumentiyo uu leeyahay wasiir Soomaaliyeed maxaa ka galay baad isleedahay ma arday uu homework soo siiyaa oo is leeyahay bal ka fiiri maxaa keeni kara in nin ajaanib ah uu faraha la galo dokumentiyo uu wasiir soo diyaariyay isagoo oo fadhiya goob shir ibtanaado uguntaday hooyada gablanka aada dhasheedii gabawaro kumaada caruurtiyo gabadfalka magac ku helay gabro waxaan filayaa kadib markaad daawateen fiidiyoodaas inaad isweydiinaysaan su'aasha ah sidee buu ku yeeshay intaas oo awood ah ninkan ajnabiga ah ee uu ugu talinayo dawladda Soomaaliya waa su'aal fiican waa su'aal mudan jawaabtaas oo fiicnaan lahayd inay bixiyaan madaxda Soomaaliya General Gabre Soomaaliya sababta uu u joogo maxay tahay maxaa uu ka hayaa Muqdisho ma ambassador ba ma envoy ba maxaa weeye official title-kiisu yani muxuu Soomaaliya maanta u joogaa muxuuna ka hayaa mid kale oo mudan in laga hadla ayaa waxay tahay dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya ma laba dawlad oo yeelan kara waxa loo yaqaan diplomatic relationship yani wax diblomaasiyad oo ka dhaxayn kara miyaa jira sababtoo waa laba dal oo siyaasad ahaan iskhilaafsan waa example ahaan haddaan bixino wadanka Mareykanka iyo wadanka Cuba waa laba dal oo iska soo horjeeda haday qaabka siyaasadda noqoto marka ma dhici karto in Cuba ay u soo dirto Mareykanka qof ambassador ah mise qof envoy ah sidoo kalena Mareykanku uma diri karo Cuba qof iyaga matala mise envoy ah marka
su-aasha meesha taalaya waxay tahay gabre muqdisho maanta muxuu la fadhiyaa what is the main reason uu meesha u fadhiyo su-aashaas ayaan jeclaan lahayn inay ka jawaabaan madaxda Soomaaliyeed midda kale ma la socotaa sanadku markuu ahaa 2007 in Villa Soomaaliya dhexdeeda ay ka dhacday arin joornaalada adduunka lagu soo qoray arintaas oo aad loola yaabay arintaas oo waxay ahayd in ay isqabteen gabre iyo madaxweynihii markaas ka taliyay wadanka Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed joornaalada adduunka sida lagu soo qoray waxa la sheegay in kadib markuu madaxweynaha Soomaaliya ka xanaaqay xasuuqa ummadda Soomaaliyeed u geysanayay ninkan gabre in uu ka codsaday inuu la kulmo si ay uga wada hadlaan xasuuqa iyo dilka uu ku hayo ummadda Soomaaliyeed joornaalada adduunka waa arin la hubo joornaalada adduunka ayaa waxay soo qoreen in kadib markii la iskugu yimaaday shirkaas hadallo badanna la isdhaafsaday in uu aad iyo aad uga xanaaqay waxa uu kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya ninka la yiraahdo General Gabre kadib arintaasi waxay keentay in madaxweynaha Soomaaliya dharbaaxa looga soo gooyo Villa Soomaaliya dhexdeeda waa arin la hubo joornaalada adduunka ayaa lagu qoray marka ninka awooddaas leh in uu madaxweyne Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga oo Villa Soomaaliya dhex taagan dharbaaxa kaga gooyo sideeba haddana dib isagoo yacni aan qaab ciidan u joogin wadanka dib loogu soo celiyay isaga oo wali Muqdisho ka dhex maleegaya in uu iska hor keeno ummadda Soomaaliyeed jawaabahaas oo dhan waxaan ka sugaynaa insha Allah oo aan jeclaan lahayn inay ka jawaabaan dawladda Soomaaliya su-aasha meesha taala waxa weeye gabre muxuu Soomaaliya u joogaa muxuu ka hayaa maxaa weeye main reasonka uu fadhiyo daawadayaal waxa la soo gaaray dhamaadkii faafiye show asbuucan wixii faahfaahina mise opinions waxaad nagala soo socodsiisaan website-kayga faafiye.com ama channelkani YouTube ama waxaad noo reebtaan wax comments waa inoo sidaas iyo aragti dambe